Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halka aad naga daawanaysaan waa barta Saadiq Media ee YouTube-ka, Facebook-ga iyo TikTok-ga. Waxaan insha Allah tacaala maanta dul istaagi doonaa oo muuqaalkeena maanta gebi ahaanba uu ku saabsanaan doonaa hababka kala duwan ee dalka Canada lagu tago. Hab ka mid ahna hababka ugu badan ee caalamka looga faa'iideysto isla markaana hirgeliya in shakhsigu uu tago dalka Canada, taasoo aan dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana bahaweynta Soomaaliyeed aan ugu hambaliyeynayo uguna bishaaraynayo caqabado badan oo hortaagan baasaboorka Soomaaliyeed, iyadoo ay jirto haddana in maanta muuqaalkan aad ku baran doonto hab aad uga gudbi karto caqabad kastoo baasaboorka Soomaaliyeed hortaagan isla markaana ku hirgelinaysa in dalka Canada aad tagtid. Haddaba muuqaalkeenan maanta waxaan ku baran doonaa midna aan u kor istaagi doonaa isla markaana aan hubaa inaad ka qanci doonto hagardaamo badan oo ku haysatay ama fahan darro la xiriirta habka dalka Canada foomamka la xiriira loo apply gareeyo inaad maanta ka qanci doonto. Waxaana weeye application for visitor visa, kaasoo ay hoos tagto ciwaanka guud ee ugu weyn ee ah temporary resident visa TRV, kaasoo ah hababka ugu badan ee dalka Canada lagu tago. Haddaba habkan ayaa waxaan ka dul istaagi doonaa 3 arrimood oo aad muhiim u ah. Ta koowaad waxay tahay documentiska ama xogaha muhiimka ah ee la rabo inaad marka horeba sii ogaatid. Waa midda koowaad. Midda labaad waxay tahay inaad ogaatid inaad tahay horta qof u qalma dalka Canada inaad tagtid, bimacnaa xogta aad haysatid, macluumaadka aad haysatid ma tahay mid keeni karta in marka aad buuxsatid foomamkan in lagugu aqbalo. Marka inaad fahantid marka hore adoonba iswaalin waqtina aan iska lumin, horta ma u qalmaa dalka Canada inaan tago iyo in kale, taasoo hab aan ku tusi doono aad ku ogaan doontid, taasoo iyaduna kulansata oo qodobka koowaad ee qodobka labaad hoos taga ah in aad heshid dokumentiyada ku caawin doona ee la rabo marka hore inaad sii diyaarsatid, taasoo run ahaantii isla hadda muuqaalka markaad daawatid la rabo inaad sii diyaarsatid. waa haddii aad rabtid dalka Canada inaad tagtid. oo waxaa ka mid ah inaad hadda akoon ama bangiyada dalka ku yaala mid ka mid ah, dahabshiil ha ahaato, amal bank ha ahaato, shirkadaha kale dalka laga yaqaan ha ahaato, inaad bangi account aad ka sii furatid, kaasoo aad hadda ku sii bilaabaysid dhaqdhaqaaqi lacageed in aad ka bilowdid, taasoo saameyn weyn ku yeelan doonta. Midda saddexaad ee u dambeysa waxay tahay habka loo furto accountiga. dokumentiyada aan sheegi doono ama formska lagu dhihi doono buuxi accountiga aad gelin doontid, habka loo abuuro, meesha laga samaysto iyo xogta lagu buuxin doono. 3 qaybood ayaan walaalayaal dul istaagi doonaa. muuqaalkanse si uusan aad noogu sii dheeraanin waxaan dul istaagaynaa 2 qodob ee hore ee ah dokumentiyada lagaaga baahan yahay iyo habka aad u ogaanaysid inaad tahay qof u qalma dalka Canada in uu tago. Haddaba intaynan barnaamijka guda gelin, haddii channelkani markii kugu horeysay uu yahay fadlan subscribe dheh. haddii akhyaarta nagu taxan aad ka mid tahayna wixii su'aal aad qabtid dhinaca hoose nagula wadaag. Haddaba waxaynu iman doonaa Google Chrome ayaan soo firi doonaa, kadibna bartaas lagu qoro wixii aad search garaynaysa ama baaraysid ayaa waxaan ku qori doonaa visitor visa temporary resident visa ayaan ku qori doonaa. kadibna waxaan dhihi doonaa search, click baan siin doonaa. click markaan siino wuxuuna keeni doonaa halkan way badan yihiin. marka si aad ugu wareerin qaybta ugu horeysa ee title-keedu uu yahay canada.ca ayaan ku dhufan doonaa ciwaanka hooseeya oo ah application for a visitor visa bracket temporary resident visa. ayada click siin doonta ama aad gujin doonta, kadibna halkan ayuu ku geyn doonaa. halkan waa faahfaahintii, waa ciwaankii aan u soconay. kadibna hoos ayaad u degi doontaa. hoos markaad u degtid faahfaahinadan dheeraadka ah waxba ha sii aadin. halkan ay ku qoran tahay apply online ayaan ku dhufan doonaa. halkan ayaan ku dhufanaysaa inagoo maanka ku hayna 3 qaybood inaan midkood dooran doono oo uu kulansan doono online-ka. markaan ku dhufano iyadaan ku dhufanaynaa. markaan ku dhufano hoos baan u degaynaa. 3 hadda aan sheegaynay oo kala faahfaahsan waa kuwana. 3 qaybood
ayaad apply garayn kartaa baa lagu yiri. Waa markii visitor visa aad dooraneysay. Visitor visa waxaa laga wadaa waa qofka booqashada ku tagaya dalka Canada. booqashadaasi marka wajiyo badan bay leeyihiin, gudahan ku arki doonaa, laakiin ciwaankeeda waa maxay? waa qofka raba inuu booqasho ku tago dalka Canada. booqashadaasi noocyada kala duwan ay kala yihiin, 3 ka mid ah lagu sheegay. midani waa tana kow wuxuu noqon karaa baa lagu yiri apply for a visitor visa. waxaad apply garaysaa oo codsataa baa lagu yiri booqashada fiisaha lagu dalbado, oo waa maxay? waa kan guud ee koobaad. ka labaad waa maxay? waa super visa. super visa waxaa laga wadaa baa lagu yiri waxaa dalbada dadka muxuu ahay waalidiinta iyo aabayaasha ama awoowayaasha baa dalbada. waalidkii marka wuxuu noqon karaa awoowe, ayeeyo, wuxuu noqon karaa aabe iyo hooyo noqon karaa. marka cid kastoo waalid ah ayaa dalban karta. sidoo kale ka saddexaadi wuxuu yahay transit visa. waxaa weeye dalkaas waxaad ku maraysaa hab transido, waad ku hakanaysaa, waad ka sii gudbaysaa, laakiin qorshahaagu ma aha inaad dalkaas sii joogtid. marka transitkaasi wuxuu noqon karaa caalamka marka la eego saacado noqon karaa, daqiiqado noqon karaa, qaar maalin buu noqon karaa iyo wixii lamida. qofkii faahfaahinta raba marka asagaa fiirin doona, laakiin guud ahaan 3 qaybood ayuu ka koobnaan karaa visitorka ama qaybta booqashada ah. inagu marka waxaan rabnaa kan caadiga guud. asaga waxaad leedahay apply marka visitor visa ayaad ku dhufanaysaa. hagaag markaad ku dhufatid halkan ayuu ku keeni doonaa. halkan markuu ku keeno ayaa waxaa lagu yiri haddaba si fiican u eeg, prepare documents and apply. waxaa lagu yiri dokumeentiyadan soo socda diyaarso kadibna apply garee. oo maxay yihiin? waa kuwana. marka haddii required aad aragtid waa qasab, kama gudbi kartid. marka waxaad sheegi doontaa baa lagu yiri sababta aad u apply gareynaysid fiisahan. marka ujeedooyinka soo socda ayuu midkood hoos tegi doonaaye midka adiga sida gaarka ah kuu quseeya ka dooro. haddaba inta aada dooran marka waxaa muhiim ah inaan fahanno waxa ay kala yihiin. midka koowaad waa maxay? waxaad dalka Canada u aadaysaa inaad dalxiisa inaad tahay. waxaad u booqanaysaa dalxiis. marka dalxiiskaasi inta uu noqon karo hadhow iyaga ku weydiin doona, laakiin waa midda koowaad. maya waxaad ku tegi kartaa dalka Canada booqashada ay noqon kartaa inaad muxuu ahay ganacsi soo booqanaysid oo qof ganacsada aad tahay, shirkad Allahumma musta'aan iyo wixii la mid ah. ka saddexaad wuxuu yahay in aad tahay qof xaaskiisii ama qofkii lamaanaha la ahaa halkaas joogay in uu booqanayo qofkaasoo qofkan u damaanad qaadaya ama u kafaalad qaadaya inuu helo joogitaan permanent joogitaan rasmi ah oo joogto ah oo temporary aan ahayn. waa maxay? waa booqashada saddexaad. waa maxay? waxaad booqanaysaa qofkii lamaanaha kula ahaa ama qofkii xaaskaaga ahaa ama qofkii lamaanaha kula ahaa. marka iyagu waxay u eegayaan marba dhaqankooda iyo shuruucdooda waxa ay qabaan ayay u eegayaan, laakiin waa qof un adigu aad muxuu ahaaye nolol wadaagteen. kaasoo waxaa lagu yiri kuu damaanad qaadaya ama kuu kafaalad qaadaya inaad dalkaas si rasmi ah u sii joogi doonto. waa dalka Canada. waa ka saddexaad oo aad dooran kartid. ka afraad waa maxay? inaad muxuu ahaay dalkaas u tagaysid for a family visit. inaad qoys soo booqanaysid. qoyskaas hadhow waan arki doonaa waxyaalaha uu kulansanaya isaguna. taashanaadi waxay tahay in aad u aadaysid dalka Canada for a passionate reasons. inaad u aadaysid compassionate reason. inaad u aadaysid dalka Canada for compassionate reasons. inaad u aadaysid arrimo naxariis ah. naxariista waxay kulansataa ayaga markii loo fiiriyo shuruucdooda in qof xanuunsan aad u aadaysid oo caruurtaadii ka mid ah ama xaaskaagii oo kale, amaye in qof caruurtaadii ka mid ah arrin emergency ah ee daraadeed lagu soo codsaday oo aad u rabtaa inaad u aadid. marka waa maxay? waa waxyaalaha dalka Canada lagu aadi karo, waana qodobka 5aad. ta 6aad waxay tahay in qofkani uu yahay qof muxuu ahaayay maraakiibta ama markabyada ama doomaha badda ka shaqeeya ama jooga xubinka ah ama ka tirsan, kaasoo shaqaalo badeed ah. marka iyaduna waad ku codsan kartaa.
maya waxaad dhihi kartaa none of the above. maya waxaad dhihi kartaa none of the above. maya intan oo dhan ma aha. marka haddaad tiraahdo intan ma aha, hadhow faahfaahinteeda adaa lagaa rabaa. marka lixdaas qodob, lixdaa arrimood ama lixdaas xaaladood ayaa dalka Canada lagu tagaa. tan marka inta badan ugu caansan ee dadku ay ku tagaan waxay ku tagaan kan ah ka u horeeya oo ah to visit as a tourist, inaad tahay qof dalxiis ah. dalxiisanimadii marka ayaa waxay fursad kuu siinaysaa qodobo kale oo kala duwan in ay fursad kuu siiso inaad sii kala dooran karto, taas oo ka mid ah in casuumaad dalka Canada aad ku tagi kartid. marka iyada bal aan fiirino. waxaan dooranay tii koowaad maadaama aan soo fahanay lixda qodob, iyadii baan dooranaynaa. kadibna continue ayaad leedahay. continue markaad tiraahdid wuxuu ku tusayaa waxyaalaha lagaa rabo, dokumentiyada lagaa rabo. gather documents, waxaa soo urursataa baa lagu soo diyaarsataa dokumentiyadan ama xogahan soo socda. oo waa maxay? waa kuwan meesha lagu lisgareeyaa lagu yiri. waxaa lagu yiri gather these documents to submit with your visa application and bring when you travel. waxaa lagu yiri waxaan dhan soo urursa dokumentiyadan kadibna waa inaad la timaadaa markii aad soo safraysid. waxaa lagu yiri marka dokumenti laga rabo marka waa kuwana. waxaa lagu yiri marka koowaad dhammaan baa lagu yiri dokumentiyadan lagu soo lisgareeyay ma aha kulligood kuwa qasab ay kugu tahay inaad la timaadid, balse some are optional, balse qaar ka mid ah ayaa waxay yihiin kuwa khiyaaraad lagu muujin karo qasab aan kugu ahayn oo aad ka gudbi kartid. waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxaa lagu yiri kuwani ma aha baa lagu yiri liiskii kulansanayay cadaymaha la aqbalayo ee kaa caawinaya inaad dalbato fiisaha ku gaarka ah. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxaa lagu yiri waxaad soo gudbisataa keliya dokumentiyada ama xogaha lagu waaniyey ama lagula dardaarmay inaad soo gudbisato, kuwaasoo waxaa lagu yiri cadaynaya ama qeexaya ama ka marakacaya inaad istaahisho ama aad u qalanto in fiisahan lagu siiyo ama aad dalbato. waa qodobka saddexaad. qodobka afraad waxaa lagu yiri haddii xataa baa lagu yiri aad soo gudbisato dhammaan dokumentiyada lagu soo listigareeyey ee lagu soo qoray, ma aha baa lagu yiri there is no guarantee, ma lagu damaanad qaadi kara baa lagu yiri in lagu aqbali doono ama applicationkaaga iyo xogtan aad soo gudbisatay in la aqbali doono oo sida aad u sheegatay lagugu aqbali doono. macnaha ma aha mid lagu damaanad qaadi karo. saa marka oo la soco. tan muxuu ahaayey shanaadi waxay tahay waxaa kaloo laga yaabaa baa lagu yiri waxaa kaloo laga yaabaa in lagaa codsado ama lagaa dalbado ama lagu weydiiyo macluumaad dheeraad ah kuwaasoo meeshan aan ku qornayn. marka intaasoo dhan ayaad u diyaar garoobaysaa. intaa kadib markii intaas aad fahantid baa waxaa lagu yiri dokumentiyada identity-ga ee qofka touristiga ah laga rabo waa kuwa soo socda. hase yeeshee waxyaalaha waxaa lagu yiri aan aqbalayno waa kuwan soo socda. kuwa aan la aqbali doonin baa soo socda, laakiin kuwan aan aqbalaa baa lagu yiri. haddaba wuxuu yiri marka la eego dadka, marka loo eego touristiga ah ama dalxiisayaasha ah, waxaa laga rabaa identity document waa laga rabaa identity document. saa daraadeed waxaan aqbalaa baa lagu yiri dokumentiyadaan aqbalo waxaa weeyaa lagu yiri baasaboorada caadiga ah ama officialka ah ama diblomaatiga ah ee laga haysta ama caalamka oo dhan ah. laakiin waxaa jira baasabooro aanan aqbalin, waxaana ka mid ah kuwan soo socda ee hoos ku qoran. ka koowaad waa maxay? waa baasaboorada ay haystaan dadka ajaanibta ah ee aan dalalka lahayn, kuwaas ma aqbalo. sidoo kale qodobka labaad waxaa lagu yiri waxaan ma aqbala baa lagu yiri ogolaanshiyaha u soo gelidda dalka Mareykanka ah, ogolaanshiyaha dib u soo gelidda dalka Mareykanka ah ee ku astaysan jiitin 327 iyadana ma aqbalaan Canada. sidoo kale qodobka saddexaad wuxuu yahay Canada markii touristiga aad codsanaysid aan laga aqbalin dokumentiyada gudbinaysid haddii aad gudbisatid aan laga aqbalin baa waxay yihiin sidoo kale waa dokumentiyada safar ee qaxootiga Mareykanka ah ee ayaguna ku astaysan
jiitin 571 haddii kuwaas aa wadatid iyadana lagaa aqbali mayo sidoo kale waxaan lagaa aqbalayn baa lagu yiri other refugee travel documents from non-citizens waxaan kaloo laga aqbalin baa lagu yiri dokumentiyada safar ee ay haystaan qaxootiyaasha kale kuwaasoo aan dalal lahayn iyaguna laga aqbali mayo inta markaad fahantay kadib waxaa kaloo lagu sheegayaa hadaba dokumentiyaduna aan la aqbalin waa kuwana iyaguna waa dalalka aan totally la aqbalin si fiican u eeg halkan Soomaaliya tuka cambaarle ayaa laga dhigay saadaraadid baasaboor Soomaali hadii aad wadatid dalka Canada 90% waxay u badan tahay inaan laga aqbalin sida dadka aan aqaano shakhsiyan anugu ay ku dhacdayba iyadoo sidaas ay tahay ayaa hadana warka farxadda leh baa wuxuu yahay in adigoo baasaboor Soomaali wata hadii foomkan habkan iyo nidaamkan aan soo marnay foomkan noo soo socdana aan u mari doono aad martid in aad ku guuleysan doontid waana mid aad arki doontid saadaradeed qalbiga iska xumaynina xogaha la rabo qofku inuu aad runtii uga fikiro baasaboorka kaliya ma aha ee waa qodobada aan ku xusi doono foomka markaan buuxin doono marka niyada khayr u sheega hawshu wali fari kama qodna waxaana niyada gashataa anoo hor Ilaahay u hadlaya hadii foomkaas sida ay tahay aad u buuxisid adigoo baasaboor Soomaali wata inaad ku guuleysan doontid hagaag halka waxaan uga gudbaynaa qaybtii aan ku fahmaynay xogaha ugu muhiimsan ee la inaga rabo su'aalaha la ina weydiin doono iyo xogaha hadii xogaheena laga helo horseedi doona in dalka Canada uusan ina aqbalin hadaba imahaas ugu muhiimsanaa qaybtan halkaasaan uga gudbaynaa intaa kadib waxaan u gudbaynaa qaybta kale iyadoo aan ka dhicin ee ah sidee baan ku ogaanayaa dalka Canada in aan u qalmo in uu i aqbalo markii foomka noocan ah aan buuxinayo iyadoo aad maanka ku haysid in channelka hadii uu kugu cusub yahay fadlan aad subscribe tiraahdid hadii akhyaartan nagu taxan aad ka mid tahayna aad like saartid wixii su'aalaha aad qabtidna qaybaha hoose aad nagula wadaagtid hagaag hadaba si aynu hawshaas u sii ambaqaano waxaan imanaynaa Google Chrome kadibna qaybta search-ka waxaan ku qoraynaa apply to come to Canada ayaan ku qoraynaa kadib search ayaan leenahay search markaan iraahno waxa inoo soo baxaysa qaybaha markay inoo soo baxdo waxaan ka dooranaynaa qaybtan ah find out if you are eligible to apply horta intaada hawshaas dhan gelin baa lagu yiraahdo waxaad hubsataa in qof u qalma oo shuruudi buuxin kara inaad tahay in kala hubso waxaan ku dhufanaynaa marka qaybtan linkigan aan ku dhufanaynaa kadibna gudahan u galeynaa okay click baan dhahaynaa click markaan niraahno halkan uu keenaya halkan markuu ina keeno waxaad su'aalahan aad ka jawaabaysaa mid koowaad waxaa lagu yiri what would you like to do in Canada maxaad rabtaa inaad ka samaysid gudaheeda maxaad rabtaa inaad ka qabatid fantaxdan yar ayaad furaysaa kadibna maadaama markii hore aan soo dooranay visit oo shuruudaheeda aan rabnay inaan barano qaybta ugu horeysa weeye ayadaan dooranaynaa waayo waxaa lagu tii karaa intaan oo nooc marka study baa dhihi kartaa move the work baa dhihi kartaa transit baa dhihi kartaa IEC baa dhihi kartaa marka badaas ma galayna waxaa kaloo dhihi kartaa inaad ka shaqeynayso wixii lamid ah marka visit baan leenahay ta saddexaad ayaan dooranaynaa visit markaan dooranay Allahumma musta'an wuxuu noo gudbiyay su'aashan wuxuu leeyahay how long are you planning to stay in Canada ilaa intee baad rabtaa inaad Canada sii joogtid macnaha muddada aad rabtid Canada inaad joogtid waa imisa fantaxdan aan furaynaa iyadana waxaan leenahay temporarily baan u joogaynaa oo less than 6 months waxaan si ku meel gaaran u joogayaa oo ah 6 bilood wax ka yar maya waxaan rabaa inaan joogo in ka muxuu ahaaye ka badan 6 bilood maya waxaan rabaa permanent inaan u joogo si joogto ah inaan u joogo marka badanaa waxaa la isticmaalaa talabaad oo ah inaad tiraahdo 6 bilood wax ka yar baan rabaa inaan joogo iyadaasaan dooranaynaa waa su'aasha labaad waan sii gudbaynaa ta saddexaad baan tagaynaa waxaa lagu yiri waxaad muxuu ahaay doorataa passport-kaaga koodhka ama waxa uu saamixi karo la mid ka noqon kara ama waxa uu buuxin karo fantaxdan furaynaa iyadana
waa maxay? Waa dalkaagii ayaad dooranaysaa. For example, maadaama laga yaabo Soomaaliya aan rabno inaan ku apply garayno, haddii dalka aad kala awoodid waa isticmaali kartaa, laakiin waxaan rabnaa marka koowaad bal mushkiladda qofka Soomaaliga ahi uu waajahayo markuu rabo Canada inuu tago iyo processka uu mari doono inaan muxuu ahaye ogaano. Okay, Som ayaan dooranaynaa oo Soomaaliya ah. dalkii ayaan dooranay, waa su-aashii saddexaad, aan isla soconno. Kadib waxaan tegaynaa su-aasha afraad. Waxaa lagu yiri what's your current country or territory of residence. waxaa lagu yiri hadda dalka aad muxuu ahaaye aad joogtid muxuu yahay aad degan tahay. If you are presently in Canada, you should select Canada. haddii baa lagu yiri hadda saacadan barnaamijka aad apply garaynaysa aad Canada joogtid baa lagu yiri Canada dooro. saa daraadeed Canada ma joogno, waxaan kasoo qaadaynaa Soomaaliya inaan joogno. SO baan qoraynaa, kadibna Soomaaliyaan muxuu ahaaye ka dooranaynaa. Somali Republic baan dooranaynaa. kadib su-aashii kalena saasaan uga jawaabnay. intaa kadib waxaa lagu yiri ma haysataa ama ma leedahay family kuwaasoo hadda muwaadiniin dalka Canada jooga ah ama si muxuu ahaaye rasmi ah u jooga. sidoo kale waxaa lagu yiri ma yihiin dadkaasi dad 18 sano ka yar ama ka weyn ma yihiin. marka haddii aysan Canada cidi ku joogin no baad dhahaysaa, hadday haa tahayna haa waad dhahaysaa. dhow su-aalo kale kugu furmaya. marka maadaama aysan noo joogin mayaan leenahay. sidoo kale waxaan leenahay sidoo kale waxaa lagu yiri goormaad dhalatay. dheydkii aad dhalatay baad halkan ku qori doontaa. wuxuu doonuu noqon karaa. marka just waxaan kasoo qaadaynaa inaad dhalatay Allahu mustacaan 2009 oo kale inaad dhalatay waan kasoo qaadaynaa. bishii baa lagu weydiiyey, bishii Febraayo aan kasoo dooranaynaa. sidoo kale maalintii sida gaarka ahaad uga dhalatay oo kale 30kaas kalena just waa iska example. intaa markaad dhammaysid next ayaad leedahay, halkanaad ku dhufanaysaa, calaamadan ayaad ku dhufanaysaa. okay, sidaasaan qaybtii kooda uga soo gudubnay. hagaag wuxuu inoo soo gudbiyey pagekii labaad ama boggii labaad ama qaybtii ku xigtay. kadib halkan wuxuu inagu weydiinayaa su-aasha ah have you lived in Canada as a permanent resident or landed immigrant. marka su-aashan kaliya yes iyo no basa kaaga filan, maadaama ay tahay muhiimadda ugu weyn ee su-aashani dalka Canada miyaad ku nooshahay ama aad ku noolaan jirtay. marka mayaad leedahay maadaama markii ugu horreysay ay tahay. dabcan haddii aad horey ugu noolaydna adaa garanayo markaas yes baad leedahay. marka next ayaan leenahay oo qaybta xigta ah. kadib waan kasii gudbaynaa. hagaag halkan ina keenay weli titlekii halkan aan ku jirnaa maanka ku haya. su-aasha halkan ku jirta marka waxay leedahay are you a lawful permanent resident of the United States with a valid US citizenship and immigration services USCIS number. marka tan wuxuu rabaa inuu ka ogaado maadaama Canada iyo Mareykanku ay aad dadis ay yihiin. waxaa lagu yiri waxaa tahay shakhsi muwaadin u dhashay dalka Mareykanka isla markaana si sharci ah oo degaanshiyo rasmi ah u leh oo halkaas Mareykanka degan miyaa tahay. marka iyadana kusii fogaan mayna no baan leenahay. kadibna next ayaan leenahay. kadib halkaan ina keenay waxaa lagu yiri what's your marital status. waxaa weeye waa xaaladaada muxuu ahaaye qoys ahaaneed ama guur. ma married baa tahay, ma legal separated baa tahay, ma divorced baa tahay, ma qeybahaana tahay. marka kii aad tahay baad ka dooranaysaa. ogowna Canada qofka keligiis ah iyo markii aad dooratid inaad xaas tahay waa haddii run ay tahay waxaa markasta mug iyo miisaan leh maarirka. marka maarirkaan dooranaynaa, laakiin adiga markasta xaaladaada baad ku salaynaysaa. then waxaan usii gudbaynaa su-aasha ku xigta oo ah destinationka iyo wixii la midka ah. kadib meesha aad ka degaysid maxay tahay baa lagu yiri. mee halka aad u socoto deegaanka ama gobolka aad Canada uga socoto
waa halkee xagee bay ka tahay maadaama Canada ay ballaaran tahay halkee gobolkee ayaad muxuu ahay si gaar ah ugu socotaa sidoo kale waxaa lagu yiri haddii aad booqanaysid meelo kala duwan deegaamo kala duwan haddii aad booqanaysid waxaa lagu yiri fadlan waxaad doorataa baa lagu yiri waxaad noo sheegtaa meesha waqtiga ugu badan aad ku bixin doonto bimacnaa waqtiga ugu badan meesha aad rabtid inaad joogtid maxay tahay marka goboladii ku yaalay Canada ayaad muxuu ahay kala dooranaysaa marka fantaxdana ku dhufanaynaa kadibna halkan aad ka raadinaysaa badanaa Soomaalidu waxay aad u yaqaanaan Ontario iyo Alberta toos u yaqaanaan badanaa oo meelaha ugu caansan marka waxaan dooranaynaa Ontario-daas aan aqaanaa inkastoo Alberta aad garanaysaan iyadana marka faahfaahinteeda si garan karnaa iyadana ku dhufanayaa kadibna next ayaad leedahay kadibna halkan ayuu ina keenay inta kadib waxaa lagu yiri jawaabtii baa soo baxday marka halkan eeg si fiican u eeg iyo results baa lagu yiri waa natiijadaadii wixii aad samaysay muxuu ahaaye ka soo baxay marka natiijadaas waxaan ku ogaanaynaa in qof muxuu ahaaye la aqbali kara aad tahay iyo in kale saadaraad waxaa lagu yiri marka loo eegaa lagu yiri macluumaadka aad bixisay ayaa waxay cadeyn doontaa baa lagu yiri whether you might be eligible to come to Canada ayaa waxay noqon doontaa baa lagu yiri mid cadeyn karta in aad tahay qof u qalma inaad timaadid dalka Canada hadaba waa kana marka waxaa lagu yiri booqashadaadii fiisaha ahaa ee ka yaraa 6 bilood ka yaraa you are eligible baa lagu yiri to apply for a visitor visa to travel baa lagu yiri to Canada waad u qalantaa baa lagu yiri inaad dalka Canada aad muxuu ahay aadid adigoo noqon doona baa lagu yiri qof booqasho kaliya ku tagi kara fiisaheedana heli kara saadaradeed jawaabtan ayaa lagu siiyo waxaa lagu yiri maadaama aad booqasho ku tagaysid dalka Canada waxay kugu qaadanaysaa baa lagu yiri fiisaha lacagta ah waa $100 bay kugu qaadanaysaa baa lagu yiri waxaan wax la soo gaabiyay waxaan la soo gaabiyay dib baan ka arki doonaa marka $100 ayaa fiisaha dalbashadiisu ay muxuu ahaaye kugu qaadan kartaa taa marka waxa halka ku fahmaysaa cid muxuu ahay lacag ka badan hadii ay ku sheegto lacagtaas in iyadana aad u baahan doonto wixii mataqaana oo ku yiri in aad ogaan doonto waa mid labaad waxaa lagu yiri marka aad muxuu ahaaye aadaysid Canada waxaad ku aadi kartaa baa lagu yiri by air diyaaradda ku tagi kartaa kaar baa ku tagi kartaa bus iyo train ama dooni wixii la mid ah adoo isla markaana heli doonaa lagu yiri in aad 10 sano muxuu ahaayay halkaas valid ay ku sii ahaato waxaas aad ku tagtay ay ku sii jirto sidoo kale waxaa lagu yiri processing times vary baa lagu yiri waliba way kala duwan yihiin processka waqti ay ku qaadanayso way kala duwan yihiin iyadoo loo eegayo marba application-ka aad dalbatay tiradiisu intuu leeyahay iyadoo loo fiirinayo processka aad ku martay marka waxay ka dhigan tahay application-ada aad isticmaalaysid marba processka aad mari doontid ayay ku xiran tahay waqti ay ku qaadanayso gabagabadii marka habkii aan soo marnay haddii aad martid waxay ka dhigan tahay dalka Canada walowba baasaboor Soomaali ah wadatid inaad muxuu ahaayay ku tagi kartid taana waxay su'aal ka keenaysaa kow markaan soo bilaabaynay in la yiri baasaboor Soomaaliga kuma muxuu ahaayay tagi kartid marka su'aashaana dib baan ayadana ka fahmi doonaa oo ay hadalkii hore hadalkii inuu isdiido dadka qaar laga yaabaa inay u qaataan laakiin markaan dib ka sharaxno ayaad si fiican u sii fahmi doontaan insha Allah taala inta kadib waan sii soconaynaa waxaana ku dhufanayaa continue maadaama aan fahanay inaan Canada baasaboor Soomaaliga ku tagi karno intaas kadib halkan ayuuna keenay halkan aad joogtaa buu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay marka waxaan rabnaa inaan ku weydiino buu ku leeyahay dhowr su'aalood iyadoo loo fiirinayo jawaabahaaga sidoo kale waxaan muxuu ahaayay waxaan ku siin doonaa personal checklist baa lagu siin doonaa iyo dokumentiyada aad muxuu ahaay u baahan tahay taasoo aad formka lagu siin doono aad ku submit garayn doonto saadaradeed fadlan waxaa lagu yiri application tirooba macnaha dhowr application hadirin waayo taas waxay keenaysaa arrinka noocaas hadaa samayso waxay keenaysaa baa lagu yiri inay saamayso dadajintii application-kaaga kasoo jawaabidoodii
saadaraaded waxaa lagu yiri ha dhowr xabo oo application ah oo isla nooci ah rabtay ah oo kala duwan ha soo dirin taa waa talo waan sii soconaynaa markaan continue waan leenahay hagaag halka markaan nimaano waxaa lagu yiri muxuu yahay ujeedka aad u aadaysid dalka Canada aad u boqonaysid muxuu yahay ma family inaad muxuu ahay booqatid ba ma to conduct business ba ma inaad wax la xiriira ganacsiga ma tourism ba ma dalxiis ba muxuu yahay marka waxaan dooranaynaa tourism kan dooranaynaa waayo haddii family ama friend aad tiraahdo xogtiisa lagu weydiinaya marka maadaama haddii marka aysan ka horeynin family ama saaxiibo rasmi iyo xogtooda aad haysid oo de addresskoodii iyo xaafaday deganayeen iyo meesha kasii deganayeen aad sheegi karin badda ha isku gelin marka tourism baan leenahay kadib next baan leenahay next markaan iraano halkan aan la weydiinayaa marka waxaa lagu yiri do you have a job in the country where you are currently live meesha hadda aad joogto baa lagu yiri shaqo ma ka haysaa qof shaqeeya ma tahay waa su'aasha halkan laga weydiinayo okay waxaa leenahay yes ama no haday yes tahay yes baad leedahay waliba yes inaad tiraahdo baan kula talinayaa waayo qof camal la'aan looma baahna waxaa ganacsi ma leedahay ganacsiga aad buu muhiim u yahay xataa haddii aad ganacsi lahayn qof ehelkaaga ah oo ganacsi leh raadso waayo assetka lagu weydiin doono qaybaha dambe aan ugu tagi doonaa aad bay ku caawin doontaa waayo xaqiiqatan markii Canada aad apply gareynaysid waana arrimaha muhiimka ah ee dadku aysan ku baraarugsanayn waxyaalaha assetka leedahay waxyaalaha aadka loo tixgeliyo waayo Africa marka ka timid gaar ahaan Soomaaliya waxay is weydiinayaan war qofkan hadduu Canada tago maxaa ku qasbaya inuu soo laabto marka haddii family ay ka dambeeyaan ama dhul hanti maguurta ah ay ka dambayso ama lacag culus wax ay ku baxayso ay ka dambayso waxay u qaadan karaan qofkani in uu qasab ay ku noqonayso inuu soo laabto waayo hantidaas muhiim ah laakiin marka aad tiraahdo xaas malihi sidoo kalena aad tiraahdo wax hantiya ma haysto caalamku uma baahna qof dheeraad ku noqda uma baahna marka tani aad bay ku caawinaysaa yes baad leedahay marka sidoo kale waxaa do you depend on someone ma qof aad ku tirsan tahay marka loo fiiriyo financial supportiga marka tanna waa xasaasiyad oo qof haddaad tiraahdo qof baan ku tiirsanahay waxaa loo arkayaa qof isku filan inaad ahayn oo ciyaal baby oo gacanta lagu hayo inaad tahay marka si qof mas'uul ah oo asagoo noloshiisa maareeyay si lagugu arko waa inaad tiraahdaa maya waa inaad tiraahdaa fantaxdaan dooranayna kadibna no baad leedahay taa maxay ka dhigan tahay marka aanu cidna kuma tiisanaya ana isku filan bay ka dhigan tahay oo caalamkaasan wax la qaybsan karaa waxaa lagu yiri wali 10 sano ugu dambeysay dal ma u safartay beenaha ka sheegin hadaa been ka sheegtid baasaboorkaaga gabagabada waxaa lagu dhihi doonaa soo sawiro noo soo dir marka baasaboorka haday ku cadaan weydo fiisa lagugu dhuftay waxaaga dhan adaa sabab u noqonaya marka in laga diido marka beenaha ka sheegin hadii dal aad u safrin dhihin waa u safray haddii aad u safartayna sheeg muxuu ahay dalalkii aad u safartay haabaad leedahay markaas ka ogowna su'aalahan oo dhan dib baa laga weydiin doonaa wax kastoo la xiriira gadaal baa laga weydiin doonaa marka ha ku khatalmin waa in su'aal kastood ka jawaabaysid waxa aad ku jawaabaysid waa inaad garanaysaa marka waxaan leenahay no haddii aad safartayna yes marka halka arrin yar baan idin turxaan bixinayaa tusaale Soomaaliya oo kale Canada safaarad kuma laha markaad rabtid inaad safaaradii booqato barnaamijkii biometric ah qaybaha dambe ku arki doonaa aad rabtid inaad martid waxaad u baahan tahay saddex dal midkood inaad u safartid inaad Kenya u safartid ima inaad u safartid Ethiopia ima inaad u safartid muxuu ahaayay Uganda markaas aad safaraysid baasaboorkaagii fiisa lagu dhufanayaa oo dalku galbaad muxuu ahay noqonaysaa marka 10 sano nooca ma waxaad si siyaasadaysan u dhihi kartaa ha waan u safray waayo isla dalkan aad safaaradda rabtid inaad ka booqatid oo barnaamijkii biometric ah aad rabtid inaad ku martid ayaad u safartay marka yes baad dhihi kartaa ha haday ka badan tahayna ka basiyo fiican marka yes baan niri continue baad leedahay ama next baad leedahay oo qaybta ku xigta ah qadibna halkan ayuu ina keenay waxaa lagu yiri sidaas oo kale waxaa lagu yiri waxaad haysataa baa lagu yiri family members that has status in Canada waxaa lagu yiri ma qoys ku jooga baa jira dalka Canada kuwaasoo
dhowaan muxuu ahaayey loo aqoonsaday Canada loo ogolaaday Canada inay yimaadaan hadday haa tahay haa baad leedahay hadday maya tahayna mayaad leedahay marka no baan iri maadaama qoys naga horeeya aysan jirin waan sii soconaynaa kadib haddana su-aashana lagu gudbiyey waxaa lagu yidhi have you ever committed or been arrested for being charged with a convicted of any criminal offense in any country markaan soo koobna su-aashan macnaheedu guud wuxuu yahay weligaa laha ma lagu xiray ama wax dembi ah dal uun ma ka gashay haddaa marka yees tiraahdid dee adaa iskhatalay marka mayaad leedahay kadibna next ayaan leenahay sidoo kale su-aasha halkan waxaa lagaa weydiiyey ma martay baa lagu yidhi caafimaad imtixaan caafimaad ma martay taasoo ay samaysay IRCC dan dib baan ka fahmi doonaa ma martay 12 sano ugu dambeeyay 12 bilood ee ugu dambeysay hadday haa tahay haa baad dhihi doontaa hadday maya tahayna maya haddaa haa iska tiraadid dib baa waxaa lagaa weydiin doonaa caddayntii shahaadadeedii keen baa lagu dhihi doonaa marka mayaan leenahay kadibna next baan leenahay waan sii soconaynaa kadib waxaa lagu yidhi ma waxaa rabtaa application ka familiga ah lagu apply gareeyo miyaa rabtaa baa lagu yidhi mise wax kalaa rabtaa marka yes baan leenahay haa applicationka familku uu kulansanayo ayaan rabnaa baan leenahay kadibna next ayaan leenahay okay intaa kadib waxaa la rabaa in loo gudbiyo qaybihii kale su'aalahana waan dhamaynay kadibna waan gudbi doonaa halkana u sii gudbi doonaa next baan leenahay okay waxaa lagu yidhi xageebuu ku nool yahay baa lagu yidhi familkaaga ama qoyskaagii waa su-aasha halkan ku xusan xageebuu qoyskaagii ku nool yahay waxaad leedahay dalku ku nool yahay baad sheegaysaa haddii Canada yahay Canada haddii Soomaaliya tahayna Soomaaliya marka Soomaaliyaan ka soo qaadayna hadduu dalka leeyahayna dalkii kala dooranaysaa marka just Soomaaliyaan hadda leenahay sidoo kale waxaa lagu yidhi qoyskaagu baasaboor nooce ah ay haystaan baa lagu yidhi ama ay muxuu ahay markay safrayaan ku safraan marka dalkii baad sheegaysaa haddana hadday Soomaali yihiin Soomaaliya waayo Soomaali waxaa jirta tusaale ahaan dalal kala haysta Mareykan haysta UK haysta Allahumma san caalamka kala haysta marka dalkii ay haysteen ayaad sheegaysaa halkan waxaan ka eegayaa Soomaaliya haddii dal kale ay haystaanna dalkii kale aad sheegaysaa waayo waxaa jira dad familkoodu aysan joogin Canada laakiin caalamka kale joogo baasaboorro kala wata marka baasaboorkii baad sheegaysaa just marka haddaan Soomaaliyaan dooranay hagaag intaa kadib waxaa lagu yidhi qoyskaagu ama qoyskaaga dadka ka tirsani baa lagu yidhi ma dad si rasmi ah u degan baa Mareykanka kuwaasoo la diiwaangeliyo loo diiwaangeliyo waxa la yiraahdo green cardka cidii taqaana marka tanna kuma sii dheeraanayna mayaan leenahay hadday tahay yes baad leedahay adaa xogtaada garanaya kadib waan kasii gudubnay halkan aan la keenay waxaa lagu yidhi hadda adiga ahaan waxaa lagu yidhi familkaaga dadka aad muxuu ahay kaala tirsan maxay yihiin baa lagu yidhi ma dad aad isqabtaanba ma dad aad kala tagteenba ma wax la mid ah marka tii ay tahay baad dooranaysaa maadaama marka hore maarir aanu niri maarirkii baan leenahay kadibna waxaa lagu weydiiyey waqtigii aad muxuu ahaay hawshan guurka ah ay dhacday waxaan iska leenahay kaba soo qaad 1988 oo kale iska dheh bisha oo kale waxaa iska tiraahdaa April waayo laakiin xogtada saxda aad gelinaysaa kadibna 10 baan leenahay waxaa lagu yidhi intaa kadib oo su-aashan ku xigta ah xagee qoyskaagu degi doonaan baa lagu yidhi haddii mataqaanaa aad tiraahday qoyskaaga ay raacaya oo lagu ogolaado macnaha meesha aad ka degi doontid ayaa lagaa weydiiyey marka Ontario aan dooranaynaa kadibna next ayaan leenahay next ayaan niri kadibna halkan ayaan keenay waxaa lagu yidhi sidoo kale maxay qoyskaagu u booqanayaan baa lagu yidhi Canada maxay qoyskaagu ay u booqanayaan meesha leedahay Canada sababtii baad sheegaysaa marka tourism ma markii hore dooranayso maadaama ay ahayd iyadii baan dooranaynaa marka kadibna next ayaan leenahay
xagaag halkan waxaa lagaa weydiiyey su-aal muhiima. waxaa lagu yidhi qof uun ka mid a qoyskaaga ka mid ah ma rabaa baa lagu yidhi in uu ku ablay gareeyo fiisaha la yidhahdo super visa la yidhaahdo ee dadka muxuu ahay awowga loo yahay ama ayeeyada dadka u ah ay u ablay gareeyaan. ma rabaan qof uun ka mid a qoyskaagu inay applicationkaas ama foomka kuu buuxiyaan. haddii marka haa ay tahay jawaabteeda, waxaa lagu yidhi keliya haddii hawshaas ay dhahaan weeye, keliya waxaa la yidhi dadka noocaas ah ee hawsha ku ablayn kara waxaa weeyaa lagu yidhi keliya ilmaha muxuu ahay kanadiyaanka ah ama halkaas jooga ee ku sugan, kuwaasoo haysta BGI viisaha la yidhaahdo. marka kusii dheeraan mayne, haddii waxaa laga wadaa murtida markaan soo koobno, haddii ay jiraan qof dalka Canada ku nool oo dadkii awowga loo ahaa ama ayada loo ahaa, haddii ay rabaan inay ku ablay gareeyaan, waxay u suurtageli kartaa oo foomka noocaas ama applicationka noocaas ay samayn karaan baa lagu yidhi waa haddii dadkaas kuusoo ablay garaynaya barnaamijka kuu codsanayo haddii ay yihiin dad Canadian u dhashay oo dee sharciga Canada haysta, ama dad permanent loo ogolaaday oo dalka inay ku noolaadaan loo ogolaaday unbaa kuu codsan kara. marka hadday tahay haana haabaad leedahay, hadday tahay noona noobaad leedahay. marka waxaan leenahay no. waan sii soconaynaa. waxaa intaa kadib has your family member ever committed, intii hadda oo kale weeye qof uun ka mid a qoyskaagaa lagu yidhi weligiis ma la xiray ama dembiyo ma galay. marka noo baan leenahay si kiisaska noocaas ah inaan isugu furin. waan kasii soconaynaa. hagaag sidoo kale waxaa lagu yidhi qof uun ka mid a qoyskaagaa lagu yidhi ma mareen muxuu ahaay imtixaankii caafimaadka ee ay leedahay IRCC-da leedahay 12 bilood ee ugu dambeeyay. haddii tahay yes baadhaysa haddii kale tahay mayana tahayna mayaad leedahay. marka maya ira anugu waan kasii soconaynaa. next baan idhi haddana waan sii soconaynaa. kadibna waxaa lagu yidhi 10 sano ee ugu dambeysay baa lagu yidhi qoyskaaga qof uun ka mida baa lagu yidhi ma mareen baa lagu yidhi fingerprinterka, macnaha biometricgii bay ka wadaan baan jeclahay. haa biometricgii bay ka wadaane biometricgaas ma mareen iyagoo application uun Canada lagu tagayo raba inay process gareeyaan. marka haddii haa tahayna haa baad leedahay, haddii maya tahayna maya. marka anagu mayaan leenahay. waan kasii gudbaynaa. hagaag intaa kadib waxaa lagu weydiiyey intan su-aashana lagu keenay. waxaa lagu yidhi waxaa jirta lacag lagu weydiin doono taasoo la xiriirta markii qoyska qof uun ka mid a applicationka loogu talagalay ay ablay garaynayaan. saa daraadeed diyaar ma u tahay in lacagtaas aad bixisid? qof uun ka mid a qoyskaaga inaad ka bixisid diyaar ma u tahay? haa baad leedahay. marka yes baad tiri I will be paying my family members application fee. qofka qoyskayga ka mid ah ee barnaamijka geli doona lacagta la weydiin doona diyaar baan u haynaa ka bixiyo. hadday tahay tanaad dooranaysaa oo yes baad leedahay, hadday maya tahayna mayaad leedahay. marka hadda yes baan leenahay maadaama dee diyaar aan u nahay, inkastoo aanan soo bubuuxinin faylka noocaas oo sanna inoogu jirin. intaa kadib waxaa lagu yidhi ma rabtaa in aad gudbisato applicationka kale oo family member ay u baahan yihiin? mayaan leenahay. kadibna halkaasaan uga baxaynaa. intaa kadib waxaa lagu yidhi qof kale ma rabtaa inaad muxuu ahaay applicationkaaga uu awood u yeesho in uu asagu uu awood u yeesho inuu xogtaadii helo oo uu isticmaalo? may baa tiri. halkan waxaa lagu cadaynayaa yes. haa waxaan qorsheyn doonaa qof ani matala si uu aniga ii matalo oo barnaamijkayga uu maro. waa su-aasha koowaad waa yes. tanna waa maxay? waa labadii su-aalood. marka just waxaan iskaga soo koobaynaa tan ama noodaan. marka noo baan leenahay. kadibna waan kasii soconaynaa adoo ku salaynaya marba adiga iyo dookaaga. tanna waa isla su-aashii hore oo kale. waxaa 10 sano ugu dambeysay qof uun muxuu ahaayey applicationka ama biometricga ah qoyskaa qof uun ka mida ma sameeyey ama adigoo ma samaysay? haddii haa tahayna haa wey, hadday tahay mayana maya. marka mayaan leenahay. kadibna next baan leenahay. waan sii soconaynaa. haddana waxaa lagu yidhi waxaa jira kharashaad iyaguna waxaa jira
la xiriira hawshan oo isla su-aashii kale nagu soo celiyeen. marka diyaar muu tahay? dee haa diyaar baanu hay baad leedahay. waan bixin doonaa. yes baa tiri, tikood baad dooratay, kadibna next baa tiri. waan sii soconaynaa. hagaag halkan waxaa lagu weydiiyey marka ma awoodaa baa lagu yiri inaad dokumentiyada oo dhan aad digital ka dhigto dokumentiya ah, kadibna aad iskaan garayso ama kamerada aad kusoo duubto oo aad ku samayso. ma awoodaa? haa baan leenahay. yes baan dooranaynaa, kadibna next ayaan leenahay. sidoo kale waxaa lagu yiri lacagta lagaaga rabo online-ka ma bixin doontaa baa lagu yiri. haddii hab online ay tahay ama hab credit ah ama Visa Mastercard ay tahay adoo hababka isticmaalaya ma ku bixin kartaa? haa baan leenahay. kadibna waxaan leenahay next. hagaag waan sii soconaynaa. intaa kadib waxaa layna keenay halkanaa layna keenay su-aalahaas oo dhan. markii aan kasoo gudubnay xogteennii baana loo soo saarayaa. marka xogtii aan gashanay meesha ayaa halkan layloogu xusayaa. kulli wixii oo dhan baad muxuu ah halkan lagugu soo sheegayaa. kadibna wixii kaa khaldamay halkan calaamadan waxaa lagugu sameeyey haddii lacala wax ay kaa khaldameen inaad dib u saxdid. kor baan kasoo bilaabayaa. wixii aad dooratay waa kana visit buu ahaa. kadib waa kana waxaa tiri waxaan joogi doonaa 6 bilood wax ka yar Canada. dalka u dhalatay waa maxay? waa Soomaaliya. hadda meesha aad joogto xagee bay ahayd? Soomaaliya. iyo halkaa kasii wad marka xogtii aan maanta oo dhan buuxinaynay ayaa halkan laynoogu soo tusay iyadoo PDF ah. kadibna ishaad marinaysaa. haddii ay kaa khaldan yihiin waad saxaysaa adoo si gaara u kor istaagaya marba meeshii gaarka ahayd. haddii ay sax kuu tahayna waad ka gudbaysaa. kadibna waxaad tegaysaa halka u hooseysa ee ku qoran tahay continue oo macnaheedu ay tahay hore u sii soco. iyadii baan ku dhufanaynaa. markaan ku dhufano halkan wayna keenayaa. marka barnaamijkii guud ee aan soo samaynay ayaa halkan laynoogu sheegayaa. kadibna waa maxay? xogteennii baa la rabaa inaan qayb usii gudubno. halkanaana loogu sheegay allahuma mustacaan. kadib waxaa lu yidhi qaybta koowaad markaan fiirino waxaa la kaydin doonaa xogtaada. waxayna dhici doontaa waqtigii adigu apply garaysay dee waqtigeedii baa lagu sheegi doonaa. waayo applicationka markii aad samaysato account baad samaysan doontaa. account-ka weligii ma jiri doono, waqti baa lagu xadidi doonaa. sidoo kale waxaa lagu yiri xogtan qayb baad soo bixin doontaa, bimacnaa computerka ku dejin doontaa. kadibna waad soo bixin doontaa adoo apply garaynaya oo xogtii lagu weydiiyey buuxinaya. sidoo kale waxaa lagu yiri tilaabooyinka lagu tilmaami doono ayaa ku hagi doona. marka waa inaad akhrisaa iyagana aad raacdaa. tilaabada afraadna waa maxay? haddii mataqaanaa aad dhibaatooyin iyo wuxuun lamid aad la kulanto waxaa leeyahay mar kastaba dokumentiyada aruurso oo de wixii kaa khaldamaya wixii kalaba la soco. intaa kadib baa lagu yiri foomka lagu diri doono horta magaciisu waa kana. mar kastaba niyadda ku hay foomka guud ee hadda kadib aan isticmaali doono waa magacan. in badanna waxaa arki doontaa lambarkan aad arki doontaa IMM 5257 baa in badan arki doontaa. kadibna xogta lagaaga rabo barnaamijkan foomka markaad buuxinaysid waa intan. waxaa lagu yiri foomka markaad buuxisid ama hawshan aad martid magacaas uu leeyahay waxyaalaha ku caawinaya waa kuwana dokumentiyada ku caawin doona. waxaa ku caawin doona hore aan usii sheegnay markii aan barnaamijka wadnayba business registration inaad tahay qof ganacsada ah oo meel uu ka ganacsado magaceedii haya, diiwaangelinteedii haya, sharcigeedii, shatigeedii wixii la midka ah haya. haddii sidoo kale dalal kale aad u safartay way ku caawinaysaa. sidoo kale baasaboorka wuu ku caawin doonaa. baasaboorku macnaha waa maxay? dunida dad aan baasaboor lahayn way jiraan, laakiin waxaa laga wadaa dalka aad ka soo jeedid ee baasaboorkooda aad wadatid wuxuu qayb ka noqon doonaa aqbalidda lagu aqbali doono dalka Canada. marka qofka baasaboor Soomaaliga wata iyo qofka wata baasaboorka muxuu ahaayay allahumma salli UK oo kale te isku qiimo ma aha. waad garan kartaa. marka qayb buu ka yahay. sidoo kale waxaa lagu yiri waxaa ku caawin doona qoysaska adiga aad haddii ay jiraan weeye qoysas adoo aad ka tirsan tahay ama aad dhashay ama adig ku dhalay ama adiga wax ku ah hadday jiraan oo ku matalaya waxaa ku caawin doona foomkan la yiraahdo IM 5713 baa ku anfici doona. waa maxay? iyaga xagga ka soo caawin doono ku muxuu ahay dacwoon kara. sidoo kale waxaa kaloo ku caawin doona
proof of means of financial support sidoo kale waxaa ku caawin karaa lagu yiri waa arki doonaa waxa la yiraahdaa bank statement qaybaha dambe ku arki doonaa bank statementigaas waa maxay waa bangi horta inaad leedahay oo qof aan bangi lahayn barnaamijyada noocan ma galo saadaradeed bangiga lacagta ku jirta marba xadiga ay la eg tahay waxay qayb ka noqon doontaa aqbalida laga aqbali karo dalka Canada intay la ekaan doonto bimacnaa waxaan ka wadnaa markastoo lacag badan ay kugu jirto tusaalaan $50,000 $100,000 ay kugu jirto tii qof waxa lagu arkayaa isbixin karo hadduu Canada tago hadduu 10 sano xataa joogo asoo isbixin karaa laakiin akoonkii waxa kugu jirtaa $1,000 waxaa leeyahay xataa koobka shaahi ugu horeysa hadduu cabo gaari tareen ma raaci karo gaariska ma bixin karo lowlaa hadduu xanuunsanana kaba sii daran marka taasina waa barnaamijyada sida gaarka ah ku caawin doona la rabo inaad xisaabta ku sii darsatid sidoo kale marriage ama certificate Soomaaliya waan ognahay oo dadku markay isguursanayaan shahaado lama samaysto laakiin inaad samaysatid waa ku muhiim waxayna cadeynaysaa inaad tahay qof xaas leh inaad tahay qof culus oo mas'uul ah qof dadkiisa haduu ka tago Canada uu aado u soo laaban doono caalamka aan galeyn inaad tahay mas'uul ah lagu arkayaa iyadana waa dokumentiyada ku caawin doona la rabo inaad maanka ku siixayso sidoo kale waxa ku caawin doona lagu digital photo halkan siyaasad yar baa ku jirta iyagu waxay ka wadaan sida guud marka loo eego waxay ka wadaan footada aad soo gudbinaysa size gaar ah lagu siin doona iyadana qaybaha dambe ku arki doonaa size-ka ama cabirka gaarka ee lagu siiyo ha ka gudbin nidaamka lagu siiyo nimanka footayaasha kulligood ma aha Soomaalidu wax ka soo naqaanaa way dhaana ka yeelin dad waxa jira professional ah oo la yaqaano oo cabirka ay rabtid ku sameeynaya ahna kan documentiga looga baahan yahay saadaradeed hayaha ku saleeba lagu leeyahay foto muxuu ahaaye image-kaaga ama sawirkaaga cabirka lagu sheegay taa waa arrinka guud laakiin arrinka meesha ku qarsoon baa wuxuu yahay ee aan rabo inaan idin sheego walaalayaal ayaa wuxuu yahay laftigaaga muuqaalkaaga hadduu yahay qof Mooriyaan oo nooc kala ah ama dee xaalad aan ku tilmaamo garan maayo oo qofku markuu ku arko kaasasayo dee adaa isgubayba marka waxaa la rabaa muuqaalkaaga laftigaaga inaad qof mas'uul isu ekaysiiso walowba laga yaabo muuqaalkaagu muxuu ahay caloga baasta waxay dhigi jireen Soomaalida haddii aad u ekow laakiin marka sawirka aad galaysid inaad qof gentle mas'uul ah isu ekaysiisid oo kiyaale xirataya Allahumma musta'antinta hagaajisataya isburukaysaya aday ku taala laakiin waxa muhiim ah qof mas'uul ah oo gadmi kara inaad isu ekaysiiso sidoo kale waxyaalaha ka qayb qaadan doona waxa kamid ah oo ku caawin doona purpose of travel ujeedka aad u safraysid markasto ujeedkaagu uu yahay ujeed mug leh oo qofkan Canada jooga ee barnaamijku uu ku dhacay waraqaha kala muxuu ahaay baandaynaya ama kala muxuu ahaay falanqaynaya ama kala dhigdhigaya wuxuu ku qanci karo waa inaad u diri kartaa taana waxay ka mid tahay waxyaalaha la rabo inaad si fiican u sii fiirsato u dambaysa waxay tahay family information oo formka noocan lagu bixin doono IAM 56 lagu bixin doono iyaduna waa xogta qoyskaaga ka gudbin doontid waayo hadii qoyska aad gudbisan doontid xogta la xiriirta ay tahay xog culus oo tusaale xaaskaagiiba waxay tahay qof aqoon-yahanada ciyaalkaagiiba waxay wada dhigtaan iskuulo oo waa maxay fasalla grade 3 grade 2 grade 5 grade 6 bay wada dhigtaan xaaskii baa shaqaysa aqoon-yahanadu weeye jaamacad bay ka soo baxday adu waad shaqaysaa dadka kale ee family-ka ku qoran doontid kulligood waa dad wada aqoon-yahano ah macnaha kaasina waa maxay wuxuu ku siin doonaa culays kale iyo miisaan kale iyo mug kale oo application-kii aad gudbinaysid macno u yeelaya taasina marka waa guud ahaan imahaas ugu muhiimsan xogtaadii baa markale lagu soo celiyay lacagtii marka waatana laga rabay lacagta laga rabo waatana lacagta laga rabo horta waa lagu kala qaadaya waxa lagu yiri visitor marka dooranaysid lacagtaadu waxay kulansataa baa lagu yiri horta qiimuhu waa $100 haddii ma taqaan lacagtan la isku darana kolayda iyagu wax gaar ah isticmaaleen weeye 200 weeye 200 bay ku leeyihiin waa iyagu say dhaheen laakiin waxaan ku dari doonaa markaan xogtan dhameeyo anigu intaan aqaanay xogta saxda ah ka hayaan idin sheegi doonaa sidoo kale waxa lagu yiri family biometric fee haddii aad bixinaysid waa hal xabo tan horta laba weeyaan idin kala boodine midkii kastaba waa 100 marka waa 200 haddii family ay tahayna waa 170 marka waxay ka dhigan tahay 170 oo laba loo qaybiyay
وأون waxay iyagu isku darsadeen family biometric fee waa ka marka intaas iyagu soo qorteen laakiin taan idin huwa waxay tahay lacagta aad ku taligali doontid waxay tahay waa lacag $186 ah waa lacagta ugu badan labadan boqol ee guud waa lacagta ugu badan ee lagu sheegi doono laakiin 180 baad ku talagelaysaa wayna ka yaraan doontaa wayna ka yaraan doontaa laakiin way ka yaraan doontaa sida anu aan ogahay inkastoo marba sanad ka dambeeya uu isbedeli doono way ka yaraan doontaa marka lacagtan guud ee 370 ka ka aan fariirin lacagtaasi waa markii family guud ay tahay laakiin marka shakhsi tahay $186 ma ka badan doonto xataa biometric markaad maraysid Allahumma musta'an aad tagaysid safaaradda Canada ku taala tusaalahaan waxaan aqaanaa Kenya oo kale markaad tagaysid lacag 200 ah xataa kugu bixi mayso iyadoo ay dheer tahay markaad soo safraysid tigidhkaaga iyo fiisahaaga iyo inaad jartitaa waa ka gaar laakiin ayagoo waxay kugu charge gareynayso waxa la yiraahdo dalka Canada waxay tahay application markaad ku jirtid application-ka online markaad ku gudbisanayso xogtan aad gudbinaysid lacagta laga rabo iyo lacagta lagugu ogolaanaya appointment-ka aad ku qabsanayso waxaas oo dhan markii la isku wada dardaro lacag 200 ma gaarayso marka waxba ha ka aan fariirin 370 kaas ay meesha ku soo qorteen inta kadib guud ahaan marka imahaas ugu muhiimsan waxa hadda inoo haray marka oo hadda aan qaybta saddexaad u gudbi doono waxay tahay in aan formkan isticmaalo isagii baan hadda ku dhuftay formkii markaan ku dhuftay halkan uu keenay halkan markuu keenay isagii baan haddana ku sii dhufan doonaa markaan ku dhufto wuu dejiyay markuu dejiyo kadibna computerkayga ayaan dhex geli doonaa wakaalkaas uu ii soo saaray isagaasaan ku dhufan doonaa kadibna isagaan dhex geli doonaa kadibna formkii ayaan buuxin doonaa waana qaybta labaad ee barnaamij muuqaalkeena dambe waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen insha Allah taala qaybta labaadna ha moogaanina si aan u fahanno formka xogta la gelinayo waa noocma maxaa lagu qorayaa maxay kulansanaysaa see loo buuxinayaa waxaasoo dhan qaybta dambe aan ku arki doonaa insha Allah taala iyo habka waliba loo gudbiyo qaybaha uu ka kooban yahay aan kala gudbayno waa inoo barnaamijka xiga ee ha moogaanin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.